kuwani waa madaxda dawladaha islaamka waxay maalmihii la soo dhaafayba ku sii qulqulayeen oo ku sii socdeen magaalada Dooxa ee wadanka Qatar iyaga oo raba inay ka gilgishaan duqayntii ay dawladda Israa'iil ka geysatay wadanka Qatar. dad badan ayaa rajo ka sugayay oo islaha wax bay sameynayaan ficil bay qaadayaan talaabo military ay qaadayaan laakiinse maya kaliya cambaaraynaya ay ku soo koobeen sidii ay u cambaarayn jireen xasuuqii iyo dagaalkii lagu hayay shacabka Falastiiniyiinta ayuunbay u cambaareeyeen weerarkii lagu qaaday Dooxa. laga soo bilaabo dagaaladii qarnigii tagay ayay la gashay dawladda Israa'iil wadamada Carbeed kuna jabisay Masar, Suuriya iyo dhammaanba wadamada ku hareeraysan ilaa iyo maanta oo ay xasuuqayso shacabkii Falastiiniyiinta. dhammaan wadamada Islaamka intoo ku hareeraysanna ay ku qaaday weeraro ka soo bilow markii ay dishay hogaamiyihii Xamaas, ka soo bilow markii ay dishay hogaamiyihii Xisbullah, ka soo bilow markii ay dishay oo loo badinayo inay dishay ee ay weerarka ku qaaday wadanka Iran iyo maanta oo ay weerar ku qaaday Dooxa Qatar oo ay ku shirayeen madaxdii Xamaas. dhammaan waxyaabahaasi waxa ay ku tusayaan sida aanay Israa'iil waxba iskaga tirinayn wadamada Carbeed iyo dawladaha Carbeedba ayna ogaatay inaanay wax talaabo ah qaadi karaynin gabigoodubana ay kaga soo ururtay cambaarayn iyo qayladaan ay u qayladaan dirsanayaan golaha ammaanku ha naga soo gaadho jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ha naga soo gaadho laakiinse Israa'iil dhammaan waxyaabahaasi oo dhan waa ay ka talaabsatay waxaanay diyaar u tahay inay wax iska celiso laakiinse yaa iska celinaya. tan iyo 2023 markii uu bilowday dagaalkii Oktoobar ee ay ku qaaday marinka Gaza waxa ay weerartay oo dishay dhammaanba madaxdii ururadii iska caabinta. sidoo kale waxa ay weerar ku qaaday Iran, waxa ay weerar ku qaaday Dooxa, waxa ay weerar ku qaaday Lubnaan, waxa ay weerar ku qaaday Suuriya. dhammaan waxyaabahaasi oo dhani waxa ay ku dhacayaan muddo 3 sanadood gudahooda. Israa'iil waxa ay diyaar u tahay inay baabiiso oo ay hirgeliso aragtideeda Israa'iisha weyn iyada oo baabiinaysa wadamada Islaamka maadaama uu fidsan yahay aragtida Israa'iisha weyn min webiga Furaad ilaa webiga Niil ayna doonayso inay xaqiijiso laakiinse dhammaan wadamada Islaamku waxa ay ku koobsadeen cambaarayn Israa'iil sida uu habeen hore ku celiyay ra'iisul wasaarahoodu marnaba ka joogsan maayaan cid kasta oo ay isqabtaan ku weeraraan meel kasta oo ay joogaan haba ahaadaan wadamada Islaamka ee shirkii maanta oo laga sugayay inay wadamada Carbeed iyo Islaamku ay in rajo ah muujiyaan ay wax ficil ah muujiyaan ay wax canaan ah oo xoogaa dhiga isku kiciyaan. shirkaasi waxa uu ku soo gabagaboobay canaan iyo cambaarayn dhakada looga tuuray Israa'iil sidii ay sameyn jireen dhammaanba wadamada Islaamka iyo wadamada Carbeed hore u sameyn jireen. dhammaan shacabka muslimiintu qoys ayaa ay joogaan dhammaan shacabka Carbeed qoys ayaa ay joogaan waa ay yaabayihiin talaabo ay qaadaana waa ay garan laayihiin laakiinse rajo ayaa jirta muslimnimadu rajo ayaa ay leedahay insha Allah maalin baa laga bixi doonaa. maxay kula tahay adiga aragtidaada goorma ayaa Israa'iil iska celin doonaa goorma ayaa ay wadamada Islaamka iyo wadamada Carbeed ay yeelan doonaan dhiig oo ay wax iska celin doonaan.